aad imarisaba kuu dhiibay taladee adna ha igu dheereen dhibaatadan i haysa ii soo dhaweeyo aan dhammayna xaajada wuxuu dhahay waraaqaa ku qori jirnay meelaa geen jira waa la ii maalmo kadib haddana jawaabtiyaa la ii soo celin jiray geeraar ahaana yani geeraar camala aan waraaqda ugu qori jirnay marka wuxuu dhahay halka keliya aniga aan ku qoslaya waxay tahay halka shay oo aan ku qoslaya waxay tahay sanadkii ay ahayd ma sheegayo dhahay maxaa yeelay xisaabtiina isku dhufsanaysiin oo dhahay sanadkii oo saxa ii keenayseen runtiis waa isku mashquul heerkan ka gaarnay le waay marka horta waagaas waxaa u malaynaa aniga ixtiraam iyo jacayl iyo wanaag baa waagaas inuu jiray oo meeshii oo ka jirina aan uga soo tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قاليقا وإذن سلامي دمان ميل والبو الدنيا كجوكتين بريان كلا مقنيني برينا ما بريدين مالمها سفراكو مقناي واسكا مشغول سناي ولا ليه قاليقا وإذن سلامي يا دمان ميل والبو الدنيا كجوكتين إلهي هايدنكو حفظو عاو حاربا ميشان إنا أغم هاد علي ولالكي محنبوسكود أوفيشيال ويوتوبر ككلية إنتان لهاد لإيسو جوابي إلهي قيرها كسي ولالكي الله كو حفظو أدي فاميلي الله إذن بركيو aniga channelka oo maxambuskut subscribe ii saaran gambaleelka ii furan video markuu soo galiyo qofka ugu horeey u soo dhacaya ahay hadaa jaanis u ay laagay saara anoo video furin marka aan jaanis helaan fiirsadaa marka maalin dhexdaas waxaan arkay maalmihii ciida asoo reaction ka bixinaya qadarkeeyo iyo dayaxdal nuurshe wuxuu dhahay heesta qadarkeeyo oo qaadayo oo maxamed saleebaan tubiic qaadi jiray allah u naxariistay oo lahaa dhankii aad imarisaba kuu dhiibay taladee adna ha igu dheereen dhibaatadan i haysa ii soo dhaweeyo aan dhammayna xaajada wuxuu dhahay waraaqaa ku qori jirnay meelaa geen jira waa la ii maalmo kadib haddana jawaabtiyaa la ii soo celin jiray geeraar ahaana yani geeraar camala aan waraaqda ugu qori jirnay marka wuxuu dhahay halka keliya aniga aan ku qoslaya waxay tahay halka shay oo aan ku qoslaya waxay tahay sanadkii ay ahayd ma sheegayo dhahay maxaa yeelay xisaabtiina isku dhufsanaysiin oo dhahay sanadkii oo saxa ii keenayseen runtiis waa isku mashquul heerkan ka gaarnay le waay marka horta waagaas waxaa u malaynaa aniga ixtiraam iyo jacayl iyo wanaag baa waagaas inuu jiray oo meeshii oo ka jirina aan uga soo tagnay waqtigaas wallaahi been inaan ku sheegayn aniga faynuusta intaa dheereeyo oo warqadda ku qoro waxaa ku qori jiray haddaa xasuusatid heestii binti cumar gacal maxaa la dhahaye haddaad mooday aakhiro inay ehelo leedahay layskuma aqoonsado aabba iyo adeerka geraarkay ku jira oo ahayd naftu adiga mooye aadmiga intaa la eg ogolaani weydo eebadii jacaylka oofaha igoyso ololaandamaynba uurkayga jiifee ehelkaan lahaa iyo dadku kale iloobi allay baday jacaylka inaan kugu dul ooyaa faynuusta habeenkaas waxaa lay dhihi jira gaaska adaa ka dhammaysa gaabi faynuusta gaabi marka waxaa u malaynaa wallaahi wanaag iyo ixtiraamba waagaas inuu jira aniga khasaarada i qabsan jirtaa waxay tahay markii oo waraaqda aan dhiibo oon warqadda dhammaystiro oon qoro oon bashqad geliyo oo la iga qaada jawaabteeda ani bil 15 beri 20 beri kadib aa la ii keenaya sababtoo ani gobolaa joogay muqdishona qofkii aado oo gobol ka tago xoogaa inuu soo joogo waay markii jawaabta la ii keeno waa laygu qabanaa ma fahmi markii laygu qabto ani bashqadaa ka jeexa waa akhrina waa laygu qabanaa marka waraaqaha qaar waxaa ku qoran bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ii waran aa ku qoran ma ogtaa warqadaha qaarna maxaa ku qoran faroom naf wax jecel tu naf la jecel yahay acuudu billah alidhaa walaa hooyaday way akrineen warqad kasto ilaa midaan ka qari aysan arkin maahane mid kasta horta haddii lagu qabto waa lay akrin jiray koraan loo qaado codka weliba aniga hadda waxaa aaminsanaya waxaa saqiif inay ahaayeen wallaahi oo hadda waa qosla laakiin markaas waqtigaas aad taagan tahay waxaagiyo la aqrinooyo waxna aad ka qaban karin ciila ku qabanayo ma ogtahay maxaa la samayn jiray kow markii oo faroom iyo tuu la arkaba horta acuudu bilaahi aa lagu dhahaa laakiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim hadday ku bilaabanayso qofkan wallaahi qof wanaagsan waaya lagu dhahaa laakiin hadday faroom ay ka bilaabato waxaa hoosaa loo sii dhaadhaca waa lasii akrinaa waxaa leeyahay
gacalis waxaan hawada kuu soo marinayaa salaan kasoo go'day sanbabada jirkaygiyo seedaha dhexdoodiyo saableyda beerka lagugu dhufayaa laleeyahay horta warqadda si fiicanoo loogu jawaabaa mana la joojina waa la dhammaystiraa waxaa la leeyahay geeraarka ku qoran iyo salaamta iyo hadallada macaan iyo kulli markii la aqriyo qofkaas horta habaaraka looga siinaa iyo caay waxaa leeyahay ii sheeg waxaa lagu soo qoraa kuwa wararka fidiya faalada qoraa fariinteyda qaado siduu caashiq wargeysyada ku faafshay siduu caashiq ay kala gaarsiiyo faado feeraha lagugu dhufayaa la leeyahay horta alxamdulilah rabbilcaalamiin aan waqtigaas soo joognay annaga maxaa yeelay hadeertaan hadday ahaan laheyd waxaa waaye labada maalin ugu horeyso baby iyo xayaati iyo xabiibi waa labada maalin ugu horeysa hadduu qofka qoryoole jooga iyo hadduu istrooli joogana ilbiriqsiyaa laysku arki karaa laakiin waagaas waa laysu xiisaay aragtida macaduunay ahayd waxaa waaye qofkan bil 2 bilood ma arkaysid haddii la rabo 15 beri ma arkaysid isku xaafad tihiin xataa laakiin ka war idinkoo 2 magaalo kala joogtiin sida layskugu xiisaay walaahi horta markii oo maahmaahda been ma ahan rag waa kii hore hadalna waa intuu yiri been ma ahan maxaa yeelay dadkii hore le waay ma fahante marka anaga horta alxamdulilah waraaqahaas ani mar waa layga jeexi jiray mar waa la gubi jiray mar meelaa la iiga qarin jiray alxamdulilah horta waraaqahaas hadda hadday oo lahayn sida adi sheegtay yacni waqtigaas iyo sanadkaas haddaan sheego waa isku dhufsanaysiin xisaabtiina camal saxankaaba saacadaan la saarnaa lahay maxaa yeelay warqadaa waqtigaasaa qortay sanadkaasaa jirtaa wallaahi billahi isceebees caadi ah waay isku mashquul waay ma fahamta ani horta badanaa markaa social media ku jiro bisaraaxa wallaahi badanaa ani waxaan galaa commentiga wax qosole ama yaab leh haddaa arko hadda maxamed buskud wuxuu dhahaa badanaa haddii aad ka gaari weyso suulka inaad ku saartid subscribe-ka madaxa jilibka feer xataa u geli qofaa marka wuxuu soo qoraa adi mobilka maa naga jebine aniga subscribe-ka maxaan ka wadaa commentiga badanaa aqriyaa instagram-ka waxaan ka arkay nin iyo naag afrikaan ah oo is aroosaya ninka waa la saarsanya marka dooq waay waa loo soo labisa suudaa loo soo xiro taaydaa loo soo xiro laakiin labada garboodaa looga jiraa saana loo saarsanya dhulka ma gaarsiisna loogiisa naagta iska duq waaye laakiin way socotaa way labisantahay way socotaa marka ani isla markii commentiga aaday maxaa ku qoran qofaa wuxuu dhahay balad ku qaad waaba lagu sidaayay maxaa ku falay aroos qofaa soo booda wuxuu dhahay qofaa wuxuu soo qoray maskiin tolo waa laga kala tegaya sariirta uga dejinaya qofna wuxuu dhahay weysada isku dhooranayaan qof kalena wuxuu dhahay waxaa laga yaabaa yaraantooda inay isjeclaayeen inay hadda calaf isku yeesheen maalin dhaweedne tiktoka wiila video soo dhigay wuxuu dhahay ninaa wuxuu dhibsaday ilmaha jaqaaya naaska hooyada maalinka dambe isagoo shaqo u socday intuusan bixin koor oo naaska hooyada sun mariyay 1 saac kadib ninkii waxaa loo sheegay inuu dhintay washmanka xaafadda maxaa ka fahanteen qofaa wuxuu soo qoray naaska hooyada oo sunta la mariyay ninka hooyadiis miyaa mase ilmihiisa hooyadood waay qofna wuxuu soo qoray tolo washmanka ma asagaa dhalay marka qosol waay social media waa la isku mashquulaa saas waay xaalka sanadkaaga adoon ogeyn oon war ka haynin meel iska fadhidid scenario dheer aa lagu keena oo dhammaystiran waxaa lagu leeyahay taariikh nololeedkaaga waa lagu keena adi haddaa keeni weysa ee akhriso ma fahante marka hadeertaan waxaa waaye nolosha hadeertaan sida isku badashay iyo noloshaasay ahaan jirta wax isle ma ahan horta runtaa waaye anaga ma sheegayno sanadkii iyo waqtiga waxay ahayd ma sheegayno laakiin ani waxaa aaminsanahay in ay macnaha wanaagii iyo sharaftii iyo kalgacaylkii iyo jaceylkiiba oo waqtigaas jiray waqtigaasna aan meeshuu ka jiray aan oga soo tagnay annaga hadda waxaa joognaa waqti 2 kelmad haddii la isdhaho iyo 3 kelmad haddii la isdhaho 4 habeen haddii la sheekaysto kadib yacni qofkan biinaaba lagu xiraabo haddii lacala ou iswaalo habeenka 4aad xanaaq haddoo keeno warkiisa dhanba bannaankuu yaalaa waxaa waaye codan kuusoo duubaa videoa kaala hadlaa videon kuusoo diraa waxaan kuusoo diraa sawiraa kuusoo diraa wixii oo dhan gacantaaday ku jiraan 4 habeen 5 habeen ani dhan waxaan ahay adi gacantaaday ku jiraan habeenka 6aad haddaa ani iswaalo
af iyo gacan le arkaa bas oo roorayaan qofkan waa la eebee fadeexada qofkan bannaankoo yaala shaqadeena waay howl kale maan leenahaye marka walaalahayga qaaliga caawa waxaa rabay aniga walaalkay maxamed buskut inaan u mahad celiyo waa mahadsan tahay walaalkay ilaaha ku xafido mar walbaa kuu mahad celinaa asxaabtayda qaaliga idinkana waa idiin mahad celinaa 1,000 jeer subscribe share comment igu caawi waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah